الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. إذن يقوم رئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بالتسليم على الوفود المختلفة المتواجدة في صالة الاستقبال. إنه يوم كبير، إنه يوم تاريخي، إنه يوم لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الذي فاز في الاستحقاق الرئاسي. إذن رئيس الجمهورية برفقة الرئيس السوداني أو نظيره السوداني رئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير السيد إسماعيل عمر جيلي، كما سيقوم بتسليم مختلف المدعوين المتواجدين في صالة الاستقبال التي يوجد فيها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. إذن سيقوم بالانتظار قليلا حتى يتم انطلاق حفل تنصيب رئيس الجمهورية هنا في قصر الشعب. إذن يقوم الآن بتسليم حار إذن بينه وبين الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. إذن قادة الدول. إذن كما ترون الآن هناك عناق حار، هناك مصافحة ودية كبيرة بين الرؤساء، بين الرئيس الصومالي ورئيس الرواندي ورئيس السوداني. إذن يقوم الرئيس الصومالي بالتسليم على مختلف الوفود القادمة والمشاركة والمتواجدة في صالة الاستقبال في قصر الشعبي. إذن رئيس الصومالية حسن الشيخ محمود وصل قبل قليل إلى قصر الشعبي، حيث سيقومون بمشاركة في هذا اليوم البهيج، في هذا اليوم الخاص، في حفل تنصيب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, le président de la République de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa waxa uu ka mid noqday soo dhaweeyaashii madaxdii ka qayb galaysay xafladaasi caleemasaarka dalka Djibouti. Axmed Silaanyo madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa waxa uu si weyn ugu sacabeeyay kadib markii ay soo galeen madaxdii ka kala socotay wadamada qaaradda Afrika ee iyagu ka qayb galay munaasabadaasi wadankaasi Djibouti mar afraad lagu dhaarinayay in uu noqdo إسماعيل عمر جيلي مدحوينها وطنكاسي Djibouti. haddaba saxaafadda Soomaalida ayaa waxa ay si weyn u soo qaadatay qaabka ay xukuumadda wadankaasi Djibouti ula dhaqantay madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland. dad badan ayaa waxay isweydiinayeen qaabka wadanka Djibouti sidaas ula dhaqmay, balse waxaa jira kuwa ka soo horjeeda oo iyagu oranaya madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa horay u tijaabiyay maamuuska iyo soo dhaweynta uu ku leeyahay dalkaasi Djibouti Axmed Maxamed Silaanyo madaxweynaha goboleedka maamulka Somaliland. dalkaasi Djibouti ayaa horay xaflad soo dhaweyn qaab madaxweynenimo ugu soo dhaweeyay Axmed Maxamed Silaanyo, balse nasiib darro qaabkii borotokoolnimada madaxweynaha intixaankii laga qaaday ayuu ku dhacay madaxweynaha maamulka Somaliland. sida muuqaalkan ka muuqata ra'iisul wasaaraha wadankaasi Djibouti iyo madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa xaflada ama munaasabada lagu soo dhaweynayay madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland waxa ay ka qaateen salaan sharaf qaar kamid ah cutubiyada ciidamada wadankaasi Djibouti.
madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland ayaa ku dhacay munaasabadaasi qaabkii uu salaan sharafta uga qaadan lahaa ciidamada wadanka Djibouti sida ka muuqata socdaalkiisa iyo nidaamka borotokoolka madaxda lagu yaqaano ra'iisul wasaaraha wadankaasi Djibouti ayay ku adkaatay in madaxweynaha maamulkaasi Somaliland uu isagu borotokoolkaasi la qabsado ra'iisul wasaaraha ayaa soo jeediyay wuxuuna u tilmaamay in uu salaanta ka qaato jarnaalka loogu talagalay in uu salaantaasi u bixiyo madaxweynaha maamulka Somaliland balse nasiib darro waa uu ka dhagalaa arrintaasi oo wuxuu u socday qaab ka baxsan nidaamka madaxweynayaasha ra'iisul wasaaraha ayaa gacanta soo qabtay dibna ugu soo jeediyay sidii uu salaanta uga qaadi lahaa taliyaha salaan sharafta u bixiyay nasiib darro markii loo soo jeediyay sidiina salaantii uu ku bixiyay generaalkii ayuu dhaqaaqi waayay madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland oo halkiisa ayuu iska sii taagnaa qawaaniintii markuu arkay in uu ka dhacsan yahay generaalkii salaantaasi bixinayay ayaa mar labaad salaantii ugu celiyay ka bacdi waa uu iska sii taagnaa ra'iisul wasaarihii iyo generaalkii ayaa isugu tagay sidiina waa lagu dhaqaajiyay daqiiqada ka bacdi waxaa la horgeeyay kooxda dhaqanka wadankaasi Djibouti waxaana isu hor istaagay sidii qof badow ah oo ka dhacsan nidaamka borotokoolka si aad ah ayuu u fiiriyay waxyar ka bacdi markii uu ra'iisul wasaaruhu arkay in uuna la haysanin nidaamka borotokoolka madaxda ayuu ra'iisul wasaarihii gacanta qabtay una dhaqaajiyay guriga madaxtooyada wadankaasi Djibouti kadar oo dibidel arrintii haddana waxaa ka hor yimid madaxweynaha wadankaasi Djibouti oo aqalkiisa albaabkiisa ku sugayay labadaasi nin Ismaaciil Cumar Geele iyo Axmed Maxamed Siilaanyo markii ay isa salaameen nasiib darro islaantii Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa gacanta u soo fidisay madaxweynaha wadankaasi Djibouti taasi oo ina shareecada islaamka aan ku banaanayn Cumar Geele oo ay ahayd maalintii oo ugu maskaxda iyo diinta badnaa ayaa ka gaabsaday in uu gacanta ku salaamo marwada madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland madaxa ayuuna u gundhiyay iyadiina Yaxya ka bacdi dib bay u istaagtay Siilaanyo ayaa sidaasi uu ku soo fasaxay madaxweynaha wadankaasi Djibouti waxayna hore u sii galeen guriga madaxweynaha wadanka Djibouti waxaana soo dhaweysay marwada madaxweynaha wadankaasi Djibouti oo iyadu si aad ah gacanta ugu salaantay halka uu ninkeedu diiday in uu gacanta ku salaamo islaanta madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland marwo aamina haddaba Somaliland in ay Djibouti ugu xanaaqdo madaxweynaha nagi ayaa laga dhigay dad shacaba Djibouti ayaana bahdishay ma ka mudan tahay mar iyo labo in ay ku soo celceliyaan maadaama ay markii ugu horeysay ku fashilmeen borotokoolkii madaxda lagu yaqaanay